farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahay laamigii ugu quruxda badnaa runtii magaalada jidadkii ugu quruxda badnaa mid ka mid ah oo dib u soo noqday oo dib loo cusboonaysiiyey oo la dhisay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si gaara dee xaafadani inkastoo magaalada muqdisho xaafadaha ii ay tahay laakiin tani waa xaafadaydii marka degmadaydii iyo xaafadaydii oo jidkii taleex loo furay loo dhisay farxad gaar ay tahay waan ku faraxsanahay waan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiye waad ku mahadsan tahay sida caadiga gudoomiye madaala waxaan ku naqaanaa oo reer muqdisho ay ku yaqaanaan inuu jidadka dhiso marka wuu mahadsan yahay mar kale inuu soo celiyey jidadkii oo haddana jidad badan la furay kuwo badanna hadda la furi doona haddii ilaa idhaahdo jidadka in la furo oo jidadka la dhiso oo la laamiyeeyo oo la qurxiyo micnaheedu waxaa weeye waa horumar farxadda runtii aan ku faraxsannahay micnaheedu waxaa weeye waxaynu gallay horumar jawi horumar jidka oo la dhisa micnihiisu waxaa weeye waa horumarkii oo dhaqaaqay waa dhaqaalihii oo la hormariyey waa amnigii oo la hormariyey waa bilicdii magaalada oo soo noqotay marka waad ku mahadsan tahay gudoomiye adiga iyo tiimkaaguba madaxda kale ee gobolka iyo degmaduba waad ku mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis waqti dhow inay muqdisho ay sidan u wada ekaato dhammaanteed waxaan rajaynaynaa haddii ilaa idhaahdo bilicda waxaa qurxiya magaalada oo la nadiifiyo laakiin intaan la nadiifinin waxaa ka sii horeysa horta marka hore in laamiyada la dhiso laamiyada marka la dhiso waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanaynaa laamiga noocan oo kale ah marka la dhiso in la ilaaliyo nadaafadiisa haddii aad guri qurux badan dhisato laakiin aad wasakh ka badiso micnaheedu wax badan ma aha laakiin laamigan oo kale marka la dhiso wuxuu u baahan yahay inaga rabaa nadaafadiisana in la ilaaliyo marka gudoomiye waxaan rajaynaynaa laamiyada aad dhistay ee magaalada aad ku soo runtii aad ku soo kordhisay qiimaha badan in lagu laro ilaalinta iyo daryeelka nadaafadda in dadkeennuna ay ogaadaan nadaafaddu caafimaadkaa ku jira nadaafadda horumarkaa ku jira nadaafadda bilicda iyo quruxda magaaladeenna ku jirta mar kasta oo laamigaagu iyo magaaladaada qurux badnaato waa markaad adigu qurux badan tahay hadday fool xun tahayna waad fool xun tahay guriga gudihiisa inaad qurxiso laakiin albaabkiisa korkiisu ay wasakh ka buuxdo micnaheed wax micnoy leedahay malaha maxaa jira dee ilmuhu guriga markuu ka soo baxo wasakh buu ku dhex nooleeyahay guriga kuma dhex jiri karo marka aynu nadaafadda ilaashanno dhismaha iyo nadaafadda ilaalintooda dhismahan saa loo qurxiyey mas-uuliyad baa ka dhalanaysa mas-uuliyadda ugu horreysana waxaa weeye nadaafadda oo la ilaaliyo way marka waxaan rajaynaynaa odaygii bilicda magaalada qaabilsanaana halkan u joogaaye in bilicda magaalada iyo nadaafadeeda ilaaliyo jidadkeedana in la hormariyo dhaqaalaha magaalada inayso waa ilaahay mahadi muqdisho isbeddelkeeda oo nabadda ah waxaa ku mataanaysan isbeddelkeeda dhinaca horumarka ah marka haddii ay markii hore ay dhib badnayd in amni ahaan darteed horumarku uu socdo hadda magaaladu waa amni maadaama ay amni tahay horumarkiina wakaa ugu dhaqaaqay saa darteed markaan lahayn amnigu waa priority-ga koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad micnaheedu waxaa weeye horumar ma jiri karo haddaan amniga laga shaqayn markii amniga laga shaqeeyo ayuu horumarku imaanayaa waana midda aan maanta u taagannahay meesha marka amniga qiimahaasuu leeyahay amnigu horumarkaasuu leeyahay amniga ha laga shaqeeyo haddii aynaan amniga ka wada shaqaynin oo aynan bulshadeennu ka shaqayn lahayn oo aynan gabdhaheennu ka shaqayn lahayn oo aynan ciidankeennu ka shaqayn lahayn maanta horumarkan halkan iyo xaafadan iyo degmadan hodan lama joogeen marka amnigaa keenay arrintaas marka amniga aan sii horumarino aan ku dadaalno mar kastoo amniga
hormaro mar kasta oo ay hormarto horumarka magaalada iyo dhaqaalaheeda iyo quruxdeedu ay hormarto waaye marka ilaahay idankiis guul baan idin rajaynayaa mar kale waan salaamayaa xaafadaydii iyo degmadaydii iyo gudoomiyahayga si gaar ah u salaamayaa waxaan idin rajaynayaa ilaahay idankiis guul waarta iyo quruxdanood ilaashataan iyo inaan maalinta dambe aan ku soo noqono jidkan ama soo marno inaan aragna asagoo sidan u eg sidan u qurux badan oo aan inta nabacaadku ka soo qarinin inta nabacaad ka soo qarinin qashin lagu soo qaaday gaari dameer inaan kolba jidka hal jawaan lagu tuurin in laga habeeyo oo noocyadii waan garanaynaa waa inaan isbeddel baan u baahnay aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye shukran jaziila lakum dhammaantiin waa mahadsantiin waan idin salaamayaa aad baad u salaamantihiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum